ururka naafada Somaliland ayaa maanta magaalada Hargeysa waxa uu ku qabtay munaasabad uu ku abaalmarinayay shirkadihii sida gaarka ula shaqeynayay ururkooda waxaana munaasabadan ka soo qayb galay ururka suxufiyiinta Somaliland ee Solta mas'uuliyiin ay ka mid ahayeen aqoon-yahan Jamaal Cali Xuseen gudoomiyaha komishinka doorashooyinka qaranka Somaliland mudane Cabdirashiid Riyaraac xildhibaan Cabdulqaadir Indho oo ka mid ah mudanayaasha golaha guurtida iyo waliba qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee dalka kuwaas oo madasha lagu abaalmariyay iyo sidoo kale naafo tiro badan oo iyaguna qayb ka ah ururka ugu horreynna waxaa madasha hadal ka jeediyay isla markaana ka warbixiyay ujeedada munaasabadan ay abaalmarnaha bixinayaan gudoomiyaha ururka naafada Somaliland mudane Daahir Xaaji Jaamac Diiriye ummadda ka mid ah baanu nahay ummad saacad walba lagu soo biiraanu nahay kii shil gaari wax ku gaaraan uu lagu soo biiraa kii dhagax ku tirtirooda ee gaangari raacda uu lagu soo biiraa kii markaa ku siibata uu lagu soo biiraa waxaanu codsanaynaa oo baaq dheer aan ku diraynaa in bulshada reer Somaliland ay noo soo jeesato oo baahidayda ugu weyn waa waxbarasho koow oo wasaaradda waxbarashada waxaanu ka codsanay in badan fartii bareelaha inay ku darto manhajka Somaliland wali kuma darin toornar ku wada hadlayna maalin dhaweyd waxaanu kale aan ka codsanaynaa maayarada sharaxan de hore waxa nagu way qaban maanta in goobad dadka naafada ay degaan inaanu helno dadka naafada meel ay degaan inaanu helno oo cid waliba nagu ogaato waxaanu leenahay baahida ay qabtaan baanu qabnaa waliba oo idinka sii nugu leh waanu u jilicsanahay hadee laxaad tahay alxamdulillah rabbil alamin waa ku xamdi naqnaa laxaadkeega anagu ilaahay baan ugu mahad celinaa laakiin ilaahay wuu isku heeneegayaa intaasi kadib waxa iyaguna madasha hadal ka jeediyay qaar ka mid ah mas'uuliyiintii madasha ka soo xaadiray ummadda Somaliland shakhsi walba qof mas'uul iyo qof aan mas'uul ahaynba in maartay dadka naafada la eego waa mid muhiim weeye dadkuna sidoo hore loo sheegay dadka naafadu hadday meel laxaad ka laayeen maskaxdooda iyo wajigooda iyo waxooda u soo dhigay siyaabo far badan baa loo ka faa'iideysan karaa shaqooyinka caalamka waxa la sameeyaa hatta shirkaduhu كوتا وسمية وحلا أنت أسوق قف النافع ولا قاعدنا يا بلد جامعة كسب حنا عالمك قارن دلا جامعة كسب حي ودقريه سرقات قارن دلا شراء وحول بدن سمية ميلاد بدن كجارن عالمك مركب حلا هاي تذكين يجينا الهوس يجين هلا وجادو إنه واحترفر بدن ليين صوبتها أنت أسوق أو برشة كتر سنة دي أنا لقى فايدة سن وحويه برشة كقوان تلفتر كده إن برشة كفايدة ستو عقل جو يحوق جوده سيد اللي لقى فايدة سن كريه أيام مهمة. شوي كقارة كروتي ده شغالي سنين كستيد أنا كوبضني وحبار كل دي وايد شوقة شغالة كل بين تانو بالله بحب نود وايد شوقة نجاه الري ودي برجع هوري لبو قري وأنا ده شغالي هذا إسكير هيدا شغالة بدن معها وهيدا مال أنت حاولي تشرتي رقاقة أنت بدن شام عادها يدتك أرضي ذا كقريب قلان waxaa imika diiwaangelintii ugu dambeysay ku jiray in jaamacadda Hargeysa soo dirtay oo dhagala laakiin si fiican wax u bartay runtii oo shaqada uu qabanayay ay cajiib ahayd laakiin inta maqnayd ay ahayd in la soo jeediyo qofka maaragtay oo aanu hadal maqlayn laakiin wixii loo soo jeediyay la tuso runtii sida ay ahayd u qabanayay oo dadka si fiican ugu shaqeynayay garashada garateen inaad dadkii 2020kii hadday leyd tahay iyo hadday telefoon tahay iyo intii aad sheegaysay baxaq baa u leedahay inaad meelo gaar ah digtaan inaad u mahadnaqdaan waxaan jecelay baahiyihiinna inaanu haddaydan sanadkan xildhibaanadii soo gelin iska dulqaata annagu kuwa tegaya manihin inta noo hadhay sidii awal baan idiin taageeri jirnay si ka weyn ayaanu idiin taageeraynaa gabagabadiina waxa uu gudoomiyaha ururka shaadooyin ku maamusay shirkadihii sida gaarka ula shaqeynayay ururka naafada Somaliland kuwaas oo ku amaanay doorkii ay ka qaateen taakulaynta dadka baahiyaha gaarka qaba waa Maxamed Cabdilaahi Maxamed Andar MMTV magaalada Hargeysa